Please click the subscribe button and hit the bell icon to get the notification of any uploaded video. asalaamu calaykum saaxiibada qaaliga ah kusoo dhawaada mar kale iyo casharadii taxanaha noo ahaa ee materials used in construction. Maanta waxaan ka hadli doonaa material kale oo aad u muhiim ah oo loo yaqaano aggregate ama af Soomaali ahaan aan u naqaano jai. Ciwaanada aan uga hadli doono ama contentska aad dul istaagi doono inta videogan uu socdo waxaa ka mid ah introduction inaan ka bixino aggregate-ka, sidoo kale classification-kiisa aan ka hadalno, physical properties-kiisa aan wax ka sheegno, isticmaalka ama uses of aggregate inaan ka hadalno, sidoo kale testiyada aggregate-ka uu leeyahay, ugu dambeynna conclusion-ka aan kusoo xiro. Okay, haddaan u bilaabano marka cashirka, introduction ugu horeeya. Okay, aggregate maxaa la yiraahdaa marka? Aggregate waa inert materials which are mixed with binding materials such as cement or lime for manufacturing a mortar or concrete. Waa walax inert or material inert waxaan kala jeednaa macna ahaan hadaa sheegno waa yacni material non reactive ah, waa yacni ma la falgalayso materialka kale mixiga kula jira sida cementiga oo kale iyo biyaha oo kale lama falgalayso, taasoo loo isticmaalo in la soo saaro mortar iyo concrete ayadoo weliba lala isticmaalayo cement ama lime oo la isku dhaho binding materials, walxaha wax isku dhajiya waa. Introduction-kan ama definition-kan yarka haddaan kuu soo koobo wax kale maaha. Aggregate hadaa maqasho waa material aan la falgalaynin cementiga, biyaha, taasoo la isticmaalo markii la rabo in la soo saaro mortar. Waa arki doonaa mortar wuxuu yahay iyo concrete markii la rabo in la soo saaro ayadoo weliba lala isticmaalayo oo aggregate-kaas lagu darayo yacni ashyaada loo yaqaano binding materials sida cement ama lime. Waa definition aad simple u ah waay inaa fahanteen arjina. Aggregate-ka marka waxaa loo isticmaalaa as a filler in mortar and concrete to reduce their cost. yacni waxaa loo isticmaalaa inuu buuxiyo oo tusaale ahaan anaga meelaan shubona oo kale meeshaas aan shubeyno oo shubka aan ku shubeyno oo kale waxay yeelanaya sidaan wada ognahay volume ama xajmi yeelanaya. Xajmigaas qaybta ugu badan ba waxaa iskale aggregate waay. Marka waxaaba la dhahaa concrete-ka xataa markii laga hadlayo concrete-ka aggregate-ka waxaa la dhahaa 70 ilaa 80% concrete-ka wuxuu ka samaysan yahay aggregate ah. So marka meeshaas economically hadii la fiiriyo qarashkii oo ah qarashkii yacni cement badan ama ciid badan ay ka geli lahayd waxaa soo yareeyay oo yacni meeshaas ka baahidaas ka daboolay aggregate-ka oo yacni faa'iido ahaan yacni meeshaas economically faa'iido aad u weyn yacni noo leeyahay. Marka commonly used aggregates include sand, crushed or broken stone and gravel. yacni aggregate-ka ugu badan ee la isticmaalo waa sand oo ciidda ah, crushed or broken dhagax la burburiyay ama la jebiyay, sidoo kale gravel-ka oo ah kan yaryarka oo quruuxa ah. Meesha marka waxaa ku arki doonaa mortar iyo concrete iyo reinforced concrete oo ah saddex shay oo badanaa markii la isticmaalayo aggregate-ka uu ku jiro ama aggregate la'aan xoogaa yacni adag tahay in la helo. Waxa ugu horeeya waxa la yiraahdo mortar marka rabto inaad hesho waxa ugu horeeya horta ama uu ka imaadaa saddex shay. Waxa ugu horeeya water, biyo inaad hesho, sidoo kale cement inaad hesho, sidoo kale sand inaad hesho. Waa biyo lagu daray shamiinto, lagu daray sand, waxay ku siinaysaa wax loo yaqaano mortar. Marka mortarka lagu sheegayo oo definition-ka aan ku aragnay waa intaas. Waxaa kale oo ku soo haray marka waxa la yiraahdo concrete ama shubka. Shubka wax kale maaha, shubka wuxuu noqonaa mortarkii aa haysatay ayaa waxaa ku daraysaa gravel oo ah jai. Ogaawna midna ogaaw sand iyo gravel labadaba waa aggregate hoos imaadaan. So marka mortarkii iyo gravelkii oo la isku daran waxay ku siinayaan material kale oo loo yaqaano concrete ama shub. Waxaa kale oo ku soo haray marka oo noogu dambeeyo materialka ugu dambeeyo oo la yiraahdo reinforced concrete. Reinforced concrete marka muxuu yahay? Waa concrete-kii aa haysatay oo loogu daray steel ama bir ayaa wuxuu ku siinayaa material loo yaqaano reinforced concrete cement waxa la yiraahdo. Okay, marka waa isticmaalka ugu badan ama meelaha ugu badan ee aggregate-ka aan ku darno ama aan u isticmaalno. Waxaa kale oo ku soo haray classification-kiisa marka ka hadlayno. Classification-kiisa marka ka hadlayno dhowr meel lagu saleyn karaa ama loo fiirin karaa. Ugu horeeyo waxa ugu horeeyo markaan ka hadlayno size-ka aggregate-ka marka ka hadlayno laba loo qaybiyo. Fine aggregate iyo coarse aggregate. Fine aggregate marka muxuu yahay? Fine aggregate waa aggregate which pass through 4.75 mm sieve or aggregates with less than 5 mm. Waxaan dhihi karnaa fine aggregate waa aggregate kaasoo gudbay amaba dhaafay sieve ama shaqshaq loo yaqaano 4.75 mm, yacni
waxaan naqaanaa siifa lagu kala saaraa sizeska uu leeyahay aggregate-ka. Sieveskaas kuwana waxaa lagu kala saaraa kuwa fine-ka ah, kuwana waxaa lagu kala saaraa kuwa coarse-ga ah. Marka fine-ka markaa ka hadlayno, sieveska waa badan yihiin, waa set dhan oo is haysta waa. Setkaas mid kasta number uu leeyahay. Marka midka fine-ka la yiraahdo waa kan gudbay amaba dhaafay sieve cabirkiisu uu yahay 4.75 mm. 4.75 mm ayuu dhaafay. Si kale hadaa u dhahan waxaan dhihi karnaa size-kiisa wuxuu ka yahay 5 mm. halkaas ugu gudubno. Coarse aggregate marka ka hadlayno, coarse aggregate waa aggregate which pass through 75 mm sieve. Kan wuxuu dhaafay sieve cabirkiisu uu yahay 75 mm. Yani waa sieve aad u weyn waa, uu soo gudbay, uu soo dhaafay. Waxaa loo marka an entirely retained on 4.75 mm sieve, laakiin wuxuu ku haray oo uu gudbi waayay sieve cabirkiisu uu yahay 4.75 mm. Si kale hadaa u dhahno waxaan dhihi karnaa waa aggregate size-kiisu uu ka weyn yahay 5 mm. Marka labadooda kana weyn, kan wuxuu soo gudbay 75 laakiin wuxuu ku haray 4.75. kan halkii kan uu gudbay 4.75, it means kana yar, kana waa weyn yahay. Marka ka hadlayna marka based on source, xagee kow ka imaado original, xagee laga helay aggregate. Kow waxa ugu horeeya qaybta koowaad waa natural aggregate ama uncrushed aggregate. Yani waa kan waa nature ahaan loo helay. weliba waxa laga wadaa uncrushed waa wax shay la burburiyay kama imaanin. kan waxa waaye naturally loo helay. Marka waa those from river beds, waa kuwa laga helay bottom surface of the river, yani salka hoose ee wabiyada iyo river sand, ciidda wabiyada laga helay. Normally rounded in shape, yani markii la fiiriyo caadiyanba shapekiisu waa mid warwareeg ah waaye, circles camal waaye. And have smooth surface texture. wuxuu kale leeyahay texture, waxaa la lahaa shayga markii la fiiriyo physically qaabka uu muuqanayo iyo markii la taabto taabashadiisa qaabka ay tahay. Marka kan waxa waaye taabasho ahaan iyo muuqaal ahaanba waa smooth waa. Midka labaad markaan fiirino source-ga, qaybta labaad waxaa la lahaa manufactured aggregate ama crushed aggregate. Waa those obtained by mechanically crushing rocks, boulders and cobbles. waxaa laga wadaa waa kuwii la helay ayadoo la isticmaalayo machine wax lagu burburiyo. waxa la burburinayna waa rocks waa, dhagax waa. Boulders iyo cobbles waa isku macno, laakiin waa dhagax aad u weyn waa ayaga naftirkooda. Marka dhagaxdaas uu ka imaado aggregate-ka saddex midkood waa inuu noqdo igneous, inuu noqdo metamorphic iyo inuu noqdo sedimentary. Kan ugu badanaa isticmaalkiisa waxaa lagu sheegaa inuu yahay midka igneous-ka ah. waxa ku xiga metamorphic ayaa ku xiga. Normal marka shape-kiisa marka ka hadlayna waa angular waaye, oo yani shay xagal leh waa, yani xagluu leeyahay. yani markii la fiiriyo oo la soo qabto shay waxa waaye ma aha rectangle ah ama uniform surface lama aha, yani waa angular waa. sidoo kale texture-kiisa marka ka hadlayna waa rough surface waa, yani shay xagxagtin leh waaye, ma aha shay smooth ah. marka ka hadlayno qaybta kale oo u dambeyso oo ah density. marka ka hadlayna density-giisa ama cufkiisa, marka ka hadlayna saddex loo qaybiyaa. Lightweight aggregate, kuwa waxa waa density waxay leeyihiin u dhaxayso 800 ilaa 1100 kilogram cubic meter. yani waa density waxay leeyihiin u dhaxayso rangigaas ama yani xadkaasi u dhaxaysa 800 ilaa 1100 kilogram cubic meter. Lightweight aggregate waxaa loo isticmaalaa as filling material, yani waa shay waxa lagu buuxiyaa, yani meel lagu buuxiyaa, sida waxa lagu buuxiyaa flooring, meelaha sagxadaha ah, dhulka oo kale ama qolalka oo kale marka la sameynayo, ama gurigaba base-kiisa marka la sameynayo waxa lagu soo buuxiyaa jay la soo garaacay. sidoo kale deck slab la lahayo badanaa wuxuu la xiriiraa bridge engineering, oo yani waa carriageway waa, yani meel la maro waaye, yani oo buundooyinka loo sameeyo. meelahaas oo kalena lagu soo buuxiyaa. midka labaad waxaa la lahaa normal weight aggregate. Normal weight aggregate waa aggregateska sida sand, gravel material which we regularly use in construction. waa kuwa caadiyanba inta badan dhismaha aan u isticmaalno. waxaa kamid ah ciidda, gravelka. ciid iyo gravel size-ka u kala duwan yihiin, kana waa weyn oo gravelka ah, sandiga yaryar. marka the normal weight aggregate are used for column, beam, slab, concrete. waxaa loo isticmaalaa markii la diyaarinayo shubka column-ka iyo beam-ka iyo slab-ka. markii loo diyaarinayo shubkaas aggregate-ka ku jira waa nooce, waa normal waa. normal aggregate loo isticmaalaa midaas ogow. The density of normal weight aggregate ranges from 1520 to 1680 kilogram cubic meter. yani rangiga ama xadka ay u dhaxayso density-ga ay leeyihiin normal weight waa 1520 to 1680 kilogram cubic meter.
midka saddexaadna waxaa loo yaqaanaa heavyweight aggregates are mostly used in construction to protect radiation. Kan waxaa loo isticmaalaa inta badan dhismaha loo isticmaalaa si uu hortago waxa la dhaho radiationka waa shucaaca oo ka imaada spaceka ama sun ka imaada weliba aadka u khatarta badan waaye. Marka the main drawback of heavyweight aggregate halka faa'iido darro ugu weyn uu leeyahay midkan wuxuu soo saaraa very low workability in concrete, yani workability-ga hoos u dhima. Workability waa sifo ay leedahay ama concrete-ka uu leeyahay waa oo lagala jeedo macnaha fududaanshaha ay fududahay in yani concrete meel laga soo transport gareeyo meel la dhigo compaction lagu sameeyo ayadoo weliba segregation iyo waxa uu ku dhicin iyo bleeding iyo waxaas uu ku dhicin, yani waqtiga inta la eg yani in la helo ayaa workability loo yaqaanaa. Marka workability-gaas hoos u dhima. Marka waxa la the density of heavyweight aggregate ranges between waxay u dhaxaysaa marka density-giisa wuxuu u dhaxeeyaa 2100 ilaa 2900 kilogram cubic meter. waxaan oo dhan marka saddexdan noocba waxay ku kala duwan waa density-ga iyo sida loo kala isticmaalayo. Kan meelaha light-ka ah loogu talagalay yani meelaha aan looga baahnayn jaay badan oo kale loogu talagalay, kana meelaha aadka yani high density loogu baahan yahay oo kale ayaa loo isticmaalaa. Kana waa normalka badan aan isticmaalno waa. qaybta noogu xigta waxa physical properties of aggregate. waxa ugu horeeyo strength, awood waxa laga jeedaa yani aggregate-ka astaamihiisu waxa kamid awood leeyahay. macnaha waxa waaye culayska banaanka uga imaaday waxa soo kale inuu awood u leeyahay inuu iska caabiyo ayaa tilmaamtiisa kamid ah. hardness waxa waa adkaanshaha maxaa waaye inuu jabo ayuu iska difaacaa, macnaha in yani markii wax la soo saaro culays oo kale ama wax kale ay ku yimaadeen yani inuu jabo ayuu aad macnaha isaga caabiyaa. Marka waxaa kaloo ku xigta toughness waxa waaye waa ability-ga shaygan uu leeyahay inuu iska caabiyo culayska impact-ga allaho ama sudden or shock ciwaan yani waxa waaye culays si aan la filin ku imaan macnaha hal mar macnaha jug inuu iska celin karo iska caabin karo ayaa waxa loo yaqaan toughness. durability-ga waxay la xiriirtaa lifetime-ka shaygan cimrigiisa. lifetime-kana waxa kale waa inuu ka hortagi karaa ama iska difaaci karaa damage-ka uga imaan kara banaanka iyo gudaha oo ugu horeeyaan weliba weathering-ka iyo waxyaalaha kale la midka inuu iska difaacin karo uu awood u leeyahay inuu yani uu jiro waqti dheer. porosity wax kale ma aha waa yani aggregate-ka tilmaam uu leeyahay oo kale waxaan laga wadaa holes uu leeyahay aggregate. maxaa yeelay aggregate-ka marka la isku keeno markasta waxa soo baxaya holes oo ah porous. marka waa porous material waa water absorption wax kale ma aha waa biyuhu nuuga yani tilmaamtiisa waxa kamid inuu biyaha u nuugayo. okay qaybta kale noogu xiga waxa uses-ka waa meelaha loo isticmaalo inkastoo qaar kamid aan ka soo hadlay. uses-ka marka waxa ugu horeeya markii la sameynayo mortar haddii la sameynayo waxaa qasaba aggregate in la helo. aggregate-ka laakiin nooca noo soo galaya marka waa nooca fine-ka ah waa lama isticmaalayo coarse iyo jay iyo waxaas lama isticmaalo. coarse lama isticmaalo oo jayga ah yani waxa la isticmaalaa midka fine oo ah sand la isticmaalaa. waana soo sheegin waxa ka kooban yahay uu ka kooban mortar. sidoo kale waxa loo isticmaalaa uses-kiisa kamid ah sida loo sameeyo concrete-ka. concrete marka la sameynayo labada waxa in la helo labadaba coarse aggregate iyo fine aggregate. coarse waxa noo medelay gravel-ka, sandigana wuxuu noo medelaa fine aggregate-ka ayuu noo medelaa. marka labadaas oo isku daray biyaha iyo sameentadii waxaana ka helinaa meeshaas concrete. waxaa kaloo loo isticmaalaa jayga markii wadooyinka la sameynayo. wadooyinka markii la sameynayo lakabyo badan oo lasoo buuxiyo waaye wadada hal mar la iska masaar wixii la rabo. wadada markii la level gareeyo waxay leedahay layers badan oo la soo dul saarayo. marka layers badan waxa kamid ah oo jay ka kooban. layerska jay ka kooban marka waxa loo baahnaa in jay la helo si markaas loo soo garaaco kadibna waxa ugu dambeeya hadhow layerka ugu koreeyo noqon doona yani asfaltiga ama laamiga caadiga ah loo saarayo. waxaa kaloo loo isticmaalaa aggregate for making railroads. wadooyinka yani tareenada ay maraan oo kale iyo naftirkeeda marka la sameynayo waxaa loo baahan yahay in aggregate la isticmaalo. markaan hadda fiirino tastiyada aggregate-ka uu leeyahay intaano testi ayuu leeyahay aggregate-ka. waxa ugu horeeya crushing test, impact value test, abrasion value test iyo sieve analysis. crushing test waxa lagu ogaadaa in la cabiro ama la qiyaaso ama la ogaadaba iska caabinta uu leeyahay aggregate-ka markii culays compression la soo saaro. awoodda uu leeyahay iska caabiyo in la xadido ama la sheego inta ay tahay. impact value testina wax kale ma aha waa in la ayadana sidoo kale la cabiro ama la ogaado iska caabinta uu leeyahay aggregate-ka markii lagu soo apply gareeyo culays oo ah impact oo macnaha laga wado culays oo sudden ah si oo aan lama filaan ah ama hal mar jug ah macnaha uu dhaco ayaa ayadana lagu ogaada. abrasion value test waxa ku ogaanaysaa yani waxa waa bahal sidii khaldadi oo kale ah waaye oo aggregate-ka lagu shubo. sidoo kale waxa lagu daraa biro warwareegsan oo kadib la wareejiyaa. marka birahaas bir aad u culus waaye marka waxay isku dayaan inay baabi'iyaan oo yaryarayaan yani aggregate-ki. marka awoodda uu leeyahay inuu iska caabiyo burburkaas ayaa waxa lagu cabiraa abrasion value test. weliba badanaa waxa la isticmaalaa waxa la Los Angeles abrasion test.
sieve analysis ugu dambeeya. Sieve analysis wax kale ma aha, waxaa la isticmaalaa waxa la sieves ama shaqshaq oo ah sets badan oo la isku geeyay oo midba cabir uu leeyahay oo lagu kala ogaado sizeska ay leeyihiin aggregateskaas intii isku size ahba oo isku range ahba in yacni isku dhinac noqdaan. ugu dambeyn marka waxa ugu dambeeya conclusionka waxaan soo ogaanay aggregate inuu yahay collective term error isku keenay oo yacni ka tarjumaya mineral materials sida sand, gravel and crushed stone. yacni wuxuu ka tarjumaya ereygaas la isku keenay mineral materials sida sandiga, gravel iyo crushed stone. kuwaasoo loo isticmaalo binding medium sida cement iyo lime iyo bitumen. marka qodobka kale wuxuu leeyahay aggregate sidoo kale waxaa loo isticmaalaa for base and sub-base cores for both flexible and rigid pavements. Pavementska waxaa wadooyinka marka la sameynayo waxay leeyihiin layers kala duwan ama courses kala duwan oo lasoo sameeyo. Baseka waxaa kasii hooseeya waxa la dhahay sub-base. kuwaas marka lasoo buuxinayo jayga badanaa loo isticmaalaa. labadaba waxaa jira laba nooc waxaa jirto oo pavement loo flexible iyo rigid. ayagana marka waqti kale aan ka hadlaynaa. okay, aggregate qodobka saddexaad wuxuu leeyahay can either be natural or manufactured. sida hore usoo sheegnay wuxuu noqon karaa mid natural ama manufactured oo mid lasoo warshaday waa. natural aggregate-ka marka waxaa laga soo qotaa ama lagala soo baxaa yani larger rocks formation ayaa macnaha lala soo baxaa ama laga soo qotaa macnaha. marka waxaan processka lagu saaran waxaa waaye excavation ama quarry waxaa wax kalmaha in drilling lagu sameeyo ama walxo oo qarxinaya in yani sidaas lagu soo fogsado dhagaxdii waaweyneed. okay, manufacturing midka ahna waxaa waa is often by product of other manufacturing industries. yani waa kan warshada soo saaray yani tusaale ahaan wuxuu ka imaado kale yani ma aha mid nature ma aha kii aan ogeyn hadda meelaha laga soo fogsado ama dhulka laga soo qodo ma aha. kan waxaa warshada sameeyay yani brick halaabo oo kale oo brick burburay oo kale dhismo guryo hore halaabo oo kale aggregate hore recycle lagu sameeyo waxyaalahaas oo kale ayaa laga keenay midkaan oo kale. gebi ahaan marka halkaas aan kusoo goobaa lecture-keena ku saabsanay aggregate-ka. dhammaantiin waa idinkaga mahadcelinaa.